waxaa magaalada Dhuusamareeb ku soo laabanaya dadkii ka qaxay dagaalkii shalay magaaladaasi ku dhexmaray ciidamada dawladda oo isugu jira booliska sida gaarka u tababaran ee Haramcad, Kumaandoosta, Gorgor iyo militariga. xaaladda magaalada ayaa saaka degan. dagaalkan oo aan weli war rasmi ah laga soo saarin khasaaraha ka dhashay ayaa la soo sheegayaa inay jiraan dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyadii dirirtu u dhaxaysay. dadka deegaanka ayaa se weli ka cabsi qaba in mar kale iska horimaadyo ka dhacaan magaalada. maamulka Galmudug ayaa dhankooda sheeganaya inay gacanta ku hayaan magaalada, halka kooxdii soo weerartay ee Ahlusunna wal Jamaca weli wax war ah oo dhankooda aanay ka soo saarin dagaalkan. magaalada ayaa laga dareemayaa saameynta dagaalka oo waxa yar dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka dadweynaha, waxaana shalay jiray guryo ay ku dhaceen madaafiicda iyo hubkii kale ee la isku adeegsanayay. xog ay heshay NTN TV ayaa sheegaysa in ciidamada Ahlusunna ay hadda joogaan deegaan lagu magacaabo Songooy oo u dhow Dhuusamareeb, sidoo kalena u dhow deegaanka Bohol oo ah halkii ay hore ugu sugnaayeen dagaalamayaasha Ahlusunna tan iyo markii laga soo saaray Gurceel. gudoomiyaha Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa warbaahinta u sheegay in magaalada laga saaray ciidankii soo weeraray ee Ahlusunna. sidoo kale khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay ayuu sheegay in guddi gaar ah loo xil saari doono. hay'adaha samafalka ayuu ku baaqay gudoomiye Geedo Qorow inay gacan ka siiyaan dadka ka cararay dagaalkii haddana doonaya inay dib ugu soo laabtaan. dhammaadkii bishii Oktoobar 2022 ayaa xogaga Ahlusunna waxaa laga saaray degmada Gurceel oo ay muddo kooban haysteen, waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare baahsan. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor iyo ku-xigeenkiisa Cali Daahir Ciid ayaa labaduba ku sugan magaalada Muqdisho, halkaas oo qayb ka yihiin ololaha doorashada dhici doonta Axadda. marka laga soo tago gudoomiyaha Dhuusamareeb oo ka hadlay xaaladda hadda taagan, ma jirto cid kale oo ka tirsan madaxda Galmudug oo dagaalka ka hadashay. waxaana dagaalka uu ku soo aaday xilli uu jiro mashquul badan maadaama beri oo Axad ah ay dhacayso doorashada madaxweynaha Soomaaliya. markii laga saaray Gurceel, Ahlusunna ayaa saldhig ka samaysatay deegaanka Bohol, waxaana maalmo ka hor ay sameeyeen wax u muuqda dholotus military.